horey lagugu sheekeeyey South Africa waa dal horumarsan, waa dal dunida casriga la jaanqaada ama la qadeeyo, waa dal G20 ka tirsan, waa dal faqriga tuuray, waa dalka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika. Waxyaabahaas oo dhan hadii lagu sheekeeyey hal xaba kama jiraan oo Soomaali badan lagu soo qalday, oo qaarkood lagu sheekeeyey Soomaali badanaa dalkan ka shaqaysatay, hanti ka tabcaday. Hal xaba kama jiraan, waxaas oo dhan yaan lagugu soo qaldin. Waa Koonfur Afrika. Video ayaan idin daari doonaa. South Africa horta biyo la'aanta iyo koronto la'aanta ka jirta waxaa ka fiican baadiyaha Soomaaliya. Bal horta intaan ka hor dhicin videoga bal aan daawano. Halkan faylka loogu jiro ama safafka dhaadheer loogu jiro biyaha waa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, magaalo madaxda xarunta dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika lagu magacaabaa. Weliba waa the financial city. Fayla loogu jiraa, biyo ayaa la sugayaa, biyo la'aan ayaa ka jirto, mararka qaar koronto la'aan ayaa ka jirto. Ceelashii baadiyaha Soomaaliya ku yaalay ama meelaha bariga Afrika ku yaalay ay la mid tahay. Fayl ayaa lagu jiraa, biyo ayaa la sugayaa. Videoga si fiican u daawo kartid. Biyo la'aan xunaa ka jirta, tubooyinkii ayaa biyaha ka wada go'een. Dalka dhanna waa la mid. Johannesburg bas maaha, Cape Town ka dhacdaa, marmarka qaar waxay ka dhacdaa hadda xaafadaha qaar hataa ceelal caadi ka qoteen Soomaalida iyo dadka Afrikaanka ah. Mar hadda kahor biyaha laga waayo dalka Koonfur Afrika. Korontadan waaba ka warqabtiin, baladii ka sheekeymayo South Africa. Korontada say u joogday iska bixisay 20 beri iska maqnaanaysa ama 30 beri. Marka xaaladda horta dalkan uu ku jiro waa noocaasi dabcan. Marka waxaa maalmahan maadaama aan South Africa laga badbadiyey, dukaana la xiray, waxaa la registraysnaa ilmaha naga dhintay, xoogaa waxyaabaha qarsan ee South Africa qarsan inaan soo bandhigno ku qasbannahay, maadaama inagu bateen wararkii ahaa waxbaa la registraynaya, waxbaa la xiri rabaa, waxbaa la furi rabaa. Marka Koonfur Afrikada lagu nool yahay horta waa noocaasi. Meel haddii dibadda tahay iyo haddii meel baadiya tahay intaba dadka indhahooda ay ku arki karaan. Maxaan ku irahdaa, fayl ayaa 6 saac maalinimo saf ayaa loogu jiraa in biyo bas la helo, wax kale aan ahayn biyo bas. Dhanka kalena dhaqanka South Africa waxaa ka mid ah hal nanac dhacay haddaa maanta fayl u soo gelisid waa soo wada galaan dadka Koonfur Afrika baahida ay qabaan. Weliba magaalooyinka iyagoo ku nool dadka qaar waxaa loo sheegay in baadiyaha isku raranka yihiin, laakiin meel walba oo Koonfur Afrika waa dadka baahidan waa haysaa. Biyahana meel walba ayaa laga galaa. Marka waa xaaladaha aanan la sheegin ee dadka beenta looga sheegay Koonfur Afrika. Biyaha iyo korontada waa looga dhiban yahay. Sidoo kale nolosha kale oo iska caadiga dadka guryaha ay ku nool yihiin waa iska bannaan. Maxaan ku irahdaa, dhar bannaan lagu wareena xataa war ajnabiga dalkan Koonfur Afrika. Horta madowga Koonfur Afrika dalkan waxba ma dhamaanba dadka ajnabiga xaqiiqatan. Kuwa dadka booba ee ajnabiga dalkeena qaata dhahay waxba ma dhamaan ajnabiga, ayaga qaxootiga ah dalkooda. Qaarkoodna waxba ka fiicanba dadka ajnabiga ee Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo waxaas ka nool fiican oo guryo iyo meelo fiican degan oo magaalooyin iska degan. Marka biyo 7 saac fayl loo soo galaa South Africa laga helaa, meel kale in laga helo uma leeymaabo. Waa idin salaamayna Soomaali Post baa naga dhageysanaysiin. Bal wararkayga la soo kordhaan ilaa 24 saac soo socdo qiimeyntoona. Bal waxbaa dukaamadii iyo deadline-kii xilligii waa dhammaayay, waxbaa la sheegay. Marka newska bal isha ku haya, bal waa mahadsantiin.